sidaynu la wada socono waxaa maalmihii u dambeeyey socday aynu ogeyn doorashooyinka ka socda dalka Djibouti iyadoo la sheegay maanta lasoo gabagabeeyey doorashooyinkii gabagabeeyey codbixintii iyadoo la sheegay haddana in uu si aqlabiyad ah lagu guuleystay madaxweynaha haatan talada haya oo dalkaasi soo maamulayay 27 sano u dambeeyey. tirada guud ee isu diiwaan galisay doorashada ayaa lagu sheegay 9,452 inkastoo tirada codaysana lagu sheegay 22,528. haddaba Ismaaciil Cumar Geele ayaa la sheegay in uu helay 22,137 iyadoo tirada guud ka dhigaysa 97% inuu ku guuleystay. nin la sheegay inuu la tartamay oo magaciisana lagu sheegay Maxamed Samatar ayaa isna helay 749 iyada oo aynu horena u ogeyn in ay mucaaradku gabi ahaanba qaadiceen doorashadaasi oo ay sheegeen in aanay ka qayb gelin. haddaba warbixin kooban oo umuurtaasi ku saabsan kusoo dhow madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa hoggaanka dalka Djibouti hayay tan iyo 1999 muddo hadda gaaraysa 17 sano iyo wax ka badan. wararka hadda soo baxaya waxay sheegayaan in uu mar kale ku guuleystay doorashadii ugu dambeysay ee shalay uu soo gabagabowday inkastoo ay si cad u qaadaceen xisbiyada mucaaradka ayaa hore u sheegay in doorashadu aysan ahayn mid daahfuran islamarkaana ay si buuxda u maamulayso xukuumadda talada haysa ee Geele. arrintaas ayaa keentay in doorashada laga waayo tartan dhab ah iyada oo ololihii ka socday magaalada Djibouti iyo guud ahaan dalkaasi uu u ekaa mid hal dhinac ah oo ay si muuqata ugu badnaayeen madaxweyne Geele iyo kooxdiisa halka aan si dhab ah loo arkin cid la tartamaysa. dhanka kale dhacdo si weyn loo hadalhayay ayaa la arkayay maalintii codbixinta kadib markii muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada oo muujinayay koox dhalinyaro Soomaaliya ka timid oo ah kuwa caanka ka ah baraha bulshada oo farta ku fiiqaya oday waayeel ah isla markaasina ay ku tilmaamayeen in uu ahaa hogaamiyaha mucaaradka oo codaynaya. arrintan ayaa shaki badan dhalisay maadaama hore loo ogaa in xisbiyada mucaaradka waddanka Djibouti ay gabi ahaanba qaadiceen doorashada noocan ah ayaa falanqeeyayaasha qaar ku tilmaameen mid la mid ah nidaamyada ay sameeyaan ama u dhaqmaan hogaamiyayaasha muddada dheer talada haya sida Yoweri Museveni Uganda iyo hogaamiyaha Cameroon ama Isaias Afwerki Eritrea ama ninka hogaamiya North Korea. halkaasoo doorashooyinka lagu dhaliilo inaysan lahayn tartan xor ah oo xalaal ah. sidoo kale waxaa si weyn loo dareemay maqnaanshaha kormeeryaal caalami ah oo madax bannaan taas oo sii xoojisay shakiga laga qabo hufnaanta iyo kalsoonida guud ee geedi socodka doorashada. gunaanadkii inkasta oo natiijada rasmiga ah ay muujinayso guul u gaadhay madaxweynaha xilka haya, haddana su'aalaha ku saabsan daahfurnaanta tartanka siyaasadeed iyo kalsoonida ee nidaamka doorasho ayaa weli si xoogan u taagan. haddaba doorashada mucaaradku waxa ay ku dhaliileen in ay tahay mid aan daahfurnayn isla mar ahaantaasina aan ahayn xukuumaddu ay maamulayso. haddaba mid ka mid ah qolyaha iyagu komishanka maamula oo la weydiiyey xilliga ay ku dhawaaqayaan natiijada doorashada ayaa waxa uu u hadlay sida tan isagoo sheegaya markaasi bal cidda maamulaysa iyo cidda ay tahay in ay ku dhawaaqdo markaad saad u garaabi doontaa garabyada mucaaradka ama hogaamiyayaasha xisbiyada mucaaradka ee dalka Djibouti. goormay soo xidhmayaan sanaaduuqda waqtiga 6 maqribnimo natiijadana goormaa filaysan inay ku dhawaaqdaan natiijada aakhirka waxaa ku dhawaaqa wasiirka arrimaha gudaha